hogaamiyahani waxa uu sabab u noqday in uu bilowdo dagaalkii labaad adduunka. Sidoo kale hogaamiyahani ayaa waxa uu dilay 60 milyan oo qof ah iyagoo isugu jira qaar uu ku dilay gacantiisa iyo kuwa uu sabab u noqday dhimashadooda. waxaana lagu magacaabaa Adolf Hitler. marka la ku soo dhawaaw muuqaalkeena maanta haddii ay tahay markii kuugu horeysay ee aad soo booqato YouTube-kani waxaan kaa codsanaynaa in aad noo subscribe gareyso sidoo kalena aad muuqaalka inoo like gareyso. isagu waa Hitler waxa uu ku dhashay dalka Austria sanadka markuu ahaa 1889 dhimashadiisuna waxa ay ahayd 1945 waxa uu dalka Jarmalka xukumayay intii u dhaxaysay 1933 ilaa iyo 1945 waxa loo aqoonsan yahay in uu ka mid yahay boqolkii qof ee ugu saameynta badnaa taariikhda bini'aadinka qarnigii 20aad. waxa uu ahaa keligii taliye iyo hogaamiye xisbiga Naaziga ama xisbiga shaqaalaha qaranka ee hanti wadaaga Jarmalka. Hitler waxa uu ka soo jeedaa waalidiin asal ahaan faqiir oo beeraley ah wuxuuna dhigan jiray iskuul. inkasta uu ahaa mid aad u aqli badan haddana mana uusan daneyn jirin waxbarashadiisa. markii dambena waa uu isaga tagay waxbarashadiisa. aabihiina waxa uu geeriyooday isagoo 13 sano jir ah. sidaasi ayuu ku sii watay markii dambe fanka waxbarashadiisa. wuxuu go'aansaday Hitler in uu u guuro magaalada Munich ee dalka Jarmalka. hase yeeshee markii uu u guuri dagaalkii koowaad ee adduunka ayaa ku kordhacay. Hitler waxa uu ku biiray ciidanka walow markii dambe laga qaaday xilka isagoo laga saaray ciidanka. markaasi waxa uu qorsheeyay in uu ku biiro xisbiga shaqaalaha Jarmalka. kadib dagaal ayaa dhexmaray Jarmalka, Ruushka iyo Jabaan. Jarmalka waxa uu isku dhiibay Stalingrad. waxa ay taariikhdiisu socotaba Hitler waxa uu dhintay 1945 walow aysan cadeen dhimashadiisa oo la isku khilaafsan yahay. haddii aan taariikhdiisa halkaas ugu nimaano oraahyadiisa iyo hadalladiisa waxaa ka mid ahaa xooga kuma jiro difaaca ee waxa uu ku jiraa weerarka. runtii dadka qaar ayaa aqriya taariikhda taas ee tahayna waxba kama fahmaan. beenta ka dhig mid aad u weyn oo ku celceli ayaga ayaa aamini doonee. qof kasta waa uu xamili karaa guusha laakiin guuldarada waxaa xamili kara qof walba oo adag. haddii aad guulaysato ma baahnid in aad wax sharaxdo balse haddii aad guuldareysato si aad wax u sharaxdo waa inaad baaba'daa. haddii aad halkaan nala soo gaartay fadlan muuqaalka like garee muuqaalkan muuqaalka xiga nabadey.